dad u badan Soomaali ayaa ka faa'iideystay tallaalka COVID-19 oo lagu bixinayay masjidka weyn ee magaalada Wilmar. Bixinta tallaalka ayaa waxaa iska kaashaday hay'adda CIC iyo Degan Wellness Clinic. waxaana dadka ka faa'iideystay u badnaa jameecada masjidka iyo deegaanka sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Xirsi Axmed. waxaan isku daynay in aan bulshada joogta Wilmar iyo dadka degan maxaa la dhihi jiray gobolka Minnesota in aan ka caawino ama aan isku dayno si ay uga hortagi lahaayeen cudurkan markii uu bilowday macluumaad fara badan lagama haynin marka waxaan la xiriirnay dhakhaatiir fara badan oo degan magaaladan si ay dadka u wacyigeliyaan waxaan la xiriirnay masaajidka iyo meelaha dadka ay ku badan yihiin si wacyigelin fara badan dadka loogu sameeyo alxamdulillah arrintaas waan ku guuleysanay arrintii kaleeto ee noogu xigtay waxay ahayd dhaqaale xumo fara badan maadaama oo wadankii ama gobolkii uu ka dhacay in aan dadka aan ka caawino cuntooyinka iyo shaqooyinka iyo trainingka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin midda kaleete waxaan iyadana meeshii aan ka maqnayn in markii uu cudurkan dhacay in waxyaabihii lagaga hortagay cudurka in dadku ay boobeen oo waqti fara badan maaragtay dadka aynan u helin inay helaan waxyaabihii ay kaga hortagi lahayn cudurka sida maskiga ama waxyaabaha PPE-ga la yiraahdo marka maadaama ay arrintaas ay jirtay dadkii Soomaalida ahaa ee magaaladan joogayna aynan haysanin meel ay ka helaan waxaan isku daynay in aan empower gareyno gabdho Soomaali ah oo sameeya arrimahaas inaan intaan alaabta ka soo gadano inaan dadka Soomaalida ahaan la wadaagno maanta meesha ay dadku ugu badan yihiin oo ah masaajidka weyn ee Wilmar inaan dadkii aan maxaa la dhihi jiray aan u keeno talaalkiina ay ka qayb qaataan oo istalaalaan si cudurka looga hortago dad fara badan baa yimaaday dad fara badan baa soo bogaadiyay in meeshii ugu fududayd ee ah meeshii Ilaahay lagu caabudayay in haddana talaalkii loogu keeno Sheekh Aadan oo ah imaamka masjidka Wilmar ayaa ku talinaya in la qaato talaalka si loo yareeyo faafidda xanuunka coronavirus. waxaan runtii kaloon aad ugu mahadcelinayaa walaaladeen dhalinyarta maxay ahayd hawlwadeennada ka ah hay'adda CIC oo mar walba bulshada wixii ay u baahnayd haqabtirkeeda ka shaqeeya oo dhalinyaro masaajidka la shaqeeya baa runtii nagala shaqeeyay oo qayb libaax ka qaatay oo meelo badan ay u fara dhuudhuuban yihiin wax ka soo qabtay dadkana waxaan kula talin lahaa si ay noogu sakhiranto in xanuunkana lala dagaalamo oo laga hortag loo sameeyo maadaama aanu dawo lahayn bulshadiina afxidhkan iyo kala fogaanshaha oo salaadihii iyo masaajidkii iyo xafladihii iyo wixii la qabsanayayba la inoogu fasaxo waxaan dadka ku dhiirigelin lahaa insha Allah tacaala talaalka hala qaato waan qaatay anigu bulsho badan way qaadatay wax dhibna lagalama kulmin insha Allah hadii la yidhaaho marka hala qaato dhanka kale Dr. Ayaan Cabdi Xasan iyo kalkaaliso Naadiya Maxamed oo dadka caawinayay sidii ay u qaadan lahaayeen talaalka ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa magacayga waxaa la dhahaa Dr. Ayaan waxaan ahay family nurse practitioner waxaan ka socdaa Degan Wellness Clinic oo ku yaala Brownsville Minnesota maanta waxaan joognaa magaalada Wilmar annaga iyo organization kala partnership sameynay oo CIC la dhaho partnershipkan wuxuu ka dhashay sidii loo gaarsiin lahaa dadkeena cirbada COVID vaccinationka sida la socotaanba coronaha dad aad u fara badan buu dilay 2020 ilaa hadda dad fara badan oo Soomaali ah oo sanadkii hore nala joogana hadda nalama joogaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto marka goolkeena waxa waa inay communitygeena access u helaan talaalka si looga hortago cudurka COVID-19 dadkana Soomaalida waxa weeye waan ka baqnaa talaalka we have a lot of misinformation marka waxaan dhilaay Ramadaanka hadda waa laga baxay laakiin saasay tahay salaada waxa fiican in isku dhawaado mar dhowna Minnesota waxay sameynaysaa mask in la iska dhigo so we are at more riskiga aad buu u weynaanayaa waxaan leenahay dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan wada Wilmar oo meelaha kale talaalka sida muhiim waay walaalayaal qaata intaasi kadib ayaa waxaan la kulmay mid ka mid ah dadkii talaalka qaatay dadka Soomaalida muslimiinta waxaan kula talin lahaa inay qaataan talaalka oo ah ka hortagga cudurka coronavirus anu talaalka maanta talaalka qaatay kolleeda wax dhibna lama aha wax way cabaar baan taagnaa markii lagu mudayna ma baan ogeyn oo wax xanuun lama aha marka dadka waxaan kula talin lahaa bahalka inay qaataan Asmar Cabdi Nuur Nabad TV Minnesota